kaaga nolol habooyo bismillaahi tacaala barakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal markasta dunida daafiyada ka joogtaan waa mar kale iyo clip cusub halkaad naga daawanaysaa waa bartaan youtube-ka ku leenahay hodo fashion asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan leeyahay soo dhawaada waa walaashin hodan oo idin leh soo dhawaada dhammaantiin waxaan marka hore fadlan kaa codsanaya dad channelka ku cusubtahay inaad subscribe saartid oo rugmatidood naga mid noqotid saan clip kastoona soo gelino aad u daawatid oo noqoto saaxiibka nagu xiran aad baad ugu mahadsan tahay like-tana nagu dhiirigeliya aad baad ugu mahadsan tahay wax lacaga ma joogto wax qiimo ah oo weyn kuguma sii fadhido gacanta yarun baad saa u riixaysaa haddaad gacanta ku riixi kari weydo faryarada kusii riix baan idin leeyahay asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta badan intaa kadib waxaan insha allah idin leeyahay kaliim aan jeclay inaan idinla wadaago clip aan daawaday mar dhexdii ahayd oo runtii aada iga yaabiyey oo waa laba hablood oo Soomaaliya oo leh waxaanu nahay dad isqaba micnaheedu markaan ku leeyahay waxaanu nahay laba qof oo isqaba ayay leeyihiin waad la yaabi doontaa runtii waxaana socon doontaa tolo maxay ku hadlaysaa hodan caawa balse laakiin aniga maan odhanin ee iyagaa yidhi aynu wada daawano bal kiliibkaas aynu wada falaqayno lamaanaha muqdisho lamaanaha muqdisho waa kuwaana maanta lamaanaha muqdisho haddii aad maqashay kuwaana horta yaanta dad maxaa lahaa ay ka joogeyno waxaa jira markasti dhan dhahayaan xaas dadka nala degan maxaa isku guursateen maxaa isku qabtiin maxaa idinka qowdan war annagu ikhtiyaaraan leen yaa qabitaan ahaa miyaa mise waa la kaftamaya dhegahayga tolo maxay maqlayaan kusoo celinaba dad khiyaar lahaanahay waana hee isqabna khiyaaraan leenahay ikhtiyaaraan leenahay qofka bini-aadmiga sidiisa baran buu inay khiyaarkiisu gelisid bal malaa ma maqlayaan ugu miyaad maqlaysaan asxaaba idinku maxay dhahdayga ina gabdhuhu maxay dhaheen labaduba midba mar bay tiriyeen bal haddaan eego mise talo waa dhegahayga bal aan ku socdo nimanka Soomaaliyeed ku anagoo baloo dugdul qaadanayni tikray inay nala guursadaan keen laba maya ku wax badan ka sokeeyay tikray hada leeyahay ku anagoo baloo dugdul qaadanayni ku anagoo naga lagu guursaday ugu dul qaaday laba anagoo ugu dul qaaday ee saddex anagoo ugu dul qaaday inay maxaa lahaay isboojeen naagana la shukaansadaan ee afar maxay keenan tikray soo galay tikray guursay war badan xaq ku keenay hadda gabdhaha Soomaaliyeed waxa uu sheegaa is aroosa walaa horta marka hore runtii ma jeclan kaliibkiina inaan kasoo hadlaamaan wax rayi ka dhiibto laakiin runtii waxa ila siismi weyday ama ila qurux badnaan weyday idinka oo habla ah oo ilaahay idinku talagalay inaad tihiin dhadig inaad iska dhigtid adigu horta mid kamid ah kulli mid baa lab iska dhigaysaa mid kamid ah ilaahay abuur aan ku siin ama ilaahay waxaan kuugu talagelin inaad tirahid waxaan ahay lab subxaanallah ma arag adduunka intaa leeg waa waqti soo socda laba hablood oo yaryar weliba aad bay u yaryar yihiin mid bay aada u yar laba hablood oo yaryar oo le waanu isqabnaa afku adaga afku ma kaalig afka wax nool baad ku liqday waan yaabanaybe buuqooda ka bax wallahi nolol macaan arkaysa wallahi hada anaga nolol macaan wallahi loo kala kaxsanta aan aad macaan ku nool ku dhawo nolol macaan way noo kala kacsantahay bal luuqa ii soo dhigo waxaan idin yaro weydiinayaa in yar markaad leedahay nolol macaan baan ku jirnaa iyo nolol sidanaad sharaxaysid dee waabaad arkaysaaba inaad adigoogan hadlayaad qalad ku hadlayside bal aan luuqa dhegta kuusoo yaro dhigay waxaad ii sheegtaa nolosha quruxda badan halkay taallaa nolosha quruxda badan waa nolosha fiican ee labada qof ku wada nool yihiin ee isqaba laakiin adu maxaa tahay bal ii sheeg marka hore maxaa tahay gabadh baa tihiin laba dumar ismaba guursan karaan markaad noocan ku hadlaysaan qoom muluud oo kale iska dhigaysaan laakiin uma malaynaya inaad dhab tahay sheekadani ay tahay un hablo yaroo iska hadlay dhahno asxaabay bal committeega kusoo qoro oo nagula soo wadaaga wixii fikirkiina laakiin anigu fikir ahaan markaan majidgareeyay waxay ila tahay in hablo yaroo iska kaftaman yihiin hablaha iska kaftaman yihiin u deynina balan ku socon
dad badan nimanka Soomaaliyeed sidoo banaanbo anigu waxaa idilay gabdho ka maro anagu inta isku dul qaadanaa Tigray aadina ay keeneen aniga nin aadinabiina marna والله المجال كردن الله نآمن أم بها نآمن لكن أنا قلت كل شيء إن الله شيء يكون عن تالي بكبرنا بس قبل صبر بي حد قبل حبروني حد عليك حد داونا يقبلته مرادي نلاش التين عن نلاش رك ولا قاعد نلاش قبل على وقت قبل ولا قاعدين عن هاي حبيبي سما بلا برافو بيتري ولا المحب برافونا بالمركو رئيس وياشاس بالنوغير جواب سنة ولا صير فرا دادير تادويه maxaad tir baroobeeya dadka aan fahmaynin aan idin yara sharaxay waxa leedahay macna idinku ila soo eega dadka aan aaminaynin oo nala soo yara eega hablaha ay u shijeedaan kullitiin raacaysa ayada cawaane horta idinku marka hore yara taga meel bilcilaash iyo quraan iyo wax soo yara saara uma malaynaa sidin ku fiyoodin والله أنا قالدي دي ونلاش على قاطنا كم عن ما جرت وأنا سنة حاسكي نلاش على قاطها كل كده بقول نين أنا أصلا هذا أنا yaa no heedaha xabada yar iska xarxaaraysa ayaa qabsada tob dadkii dhalay walaalowno na walaale dadkii ku dhalay mi ku soo lugooyeen waxaan arkay anigu iyo naag baan isku nahay sudafku ugu soo baxayaan la yaabanaybe ayaan darada intan leeg iska daayay hablo waaweyn baa tiiri kowda clipkan ma si dhageysan karayo dhagahaygu waxaanan aad u jeclaysanaynin bay ku soo dhacay marka waxaan idin oran lahaa hablo yar ama gabdho ama hablo dhamaantii waxa leeyahay waxa doontaan baa ahaad isku soo wada duub nin iyo naag baan nahay ereygu wuu culus yahay waxaad ku dhawaaqaysan ama hadalkiina ka soo baxay runtii dhagahayga uma adkaysanay dhaga kalena iskiba daaba hadalkooda ma fahanteen waliba cariga aad ku nooshihiin markaan si u jaleeca ma eego waxay tahay wadan Soomaaliyeed marka kulay waxay la tahay inaad YouTube-ka isleedihiin dad badan haydan daawadaan hadalka aad leedihiin hamiisanaado codka aad ku hadlaysaa ma hadalka aad ku dhawaaqaysaa waa hadal meel dheer ku dhacaya marka waxaan oran lahaa gabdho ka fiirsada waxaad leedihiin hablo yar baad tihiin mustaqbal baad leedihiin nolol baad idin sugaysa inta midnaba iskaga ciyaarina waxaad ku weydeen wanaagna xumaan ku helimaysan waxaan oran lahaa dhalinyaro intaas hore waa wax iska kaftana laakiin in weynaa baan idin siinayaa waxaan idin leeyahay waxaad ku hadlaysaan ama aad ku jawaabaysaa wax qurux badan maahan ama aqliga bini'aadanka uu qaadan karo marka please waxaan ka codsanayaa inaad joojistaan sheekada halka asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan leeyahay halkan clipka ayaan ku soo afjaraynaa maadaama clipkani aad u sii xun yahay laakiin in yar waanay talaabin siinay asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha mudan waxaan leeyahay dad channelkayga ku cusub tahay mar kale waxaan kugu celinayaa inaad rugmateed naga mid noqoto subscribe saartid kambaleelkana furatid dad baan garanayn baa laga yaabaa subscribe meesha yare cas cadee like tayarna ku dhufo meesha yare suulku ka taagayna dhar ku sii ka wadhaha maantiin waxaad leeyahay wad ku mahadsantihiin daawashada aad daawanaysaan iyo kamid ahaanshaha naga mid noqoteen adigaaga i daawanaya ayaan ku leeyahay hadda iga mid noqotay waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay Olkaad nolol habbooniyo